uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle Siraaji Sheekh Isaaq oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaano wasiiro iyo senataro ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi. wafdiga ayaa waxa kamid ah wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Cabdifataax Qaasim, wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadi, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dowladda federaalka iyo xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabelle, waxaana garoonka diyaaradaha Beledweyne ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabelle. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Cabdifataax Qaasim oo hadlay ayaa sheegay in ujeedkoodu uu yahay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beelada ka socda deegaanada ku yaala duleedka magaalada Beledweyne isla markaana dib u heshiisiin la dhex dhigi lahaa beelaha ku dagaalamaya magaaladaasi. waxa wadalkiisa intaas ku sii daray in dagaal uu sunaxba soo kordhinaynin, waxaana uu ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Beledweyne in ay dagaalka joojiyaan. waxaan kaloo rabaa inaan waxa weeyaan cadeyno ujeedkeena inuu yahay dadaaladii walaalaha ay wadeen iyo gudiyadii jiray ee looga gal lahaa in dib u heshiisiin la dhex dhigo walaalaha dagaalamay, inaan arinta iyada qaybta nooga aadan ka qaadano. waxaad tihiin dad walaalaha, mar waxaad walaalo ku tihiin islaamnimada, mar waxaad walaalo ku tihiin Soomaalinimada, mar waxaad walaalo ku tihiin Hirshabelnimada, mar waxaad walaalo ku tihiin Hiiraannimada, mar waxaad walaalo ku tihiin reer Beledweynenimada, marna dadka kale waa isaga sokeesaanoo xigaal iyo deris taariikh ahaan iyo deegaan ahaan ayaad isu xigtiin. waa ayaan dara marka annagoo intaas dhaxal haysana maanta inay xabad dhacdo. saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalada Beledweyne ay ka dhacaan kulamo hordhac ah oo looga areensanayo sidii xabad joojin loo kala dhex dhigi lahaa labada maleeshiya beelad ee ku dagaalamaya duleedka magaalada Beledweyne. waxaana soo taraya baaqyada nabadeed ee loo jeedinayo dadkaas walaalaha ee ku dagaalamaya Beledweyne iyo in dagaalkaasi ay joojiyaan. Nuur Cabdiraxmaan, Nuur VOS TV, Muqdisho.